kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan halka naga daawanaysana waa youtube-keena maqaltube kusoo dhawaada youtube-keena haddaba intaa muuqaalka ugu deganayn daawada haddii ay tahay markii ugu horeysa aad youtube-kan maqaltube aad soo booqatid subscribe saar si aad u heshid muuqaalada quruxda badan aan barta mar walba kusoo gudbino haddaba haddii aad ka mid tahay dadkii hore oo subscribe noogu saaray aad si joogi jirteen video like saar si sheegare si uu dad badan u gaaro mahadsanid waxaa baraha bulshada laisla dhexmaray hambalyo markaasi uu Shiine Culey kusoo dhigay bartiisa Instagram uu sheegayo ugu dambeyntii waxaan noqday aabbo oo waxaan ka dhalay ayuu leeyahay Abdi Xabiibi haddaba Abdi Xabiibi loo yaqaano Manaal oo xaaskii hore sinkiisii uu soo furay ayaa markii hore waxaa la isku xamanayay inuu Shiine Culey uu markaasi u yeelay oo Manaal Beeldaaji asagoo markaasi dadka taas ku xaman jireen haddaba Soomaalida ayaa waxay hore u dhahday wixii la isla sheegaba hadalba wix la dhaho run ayuu mar u noqon doonaa oo waayo Soomaalida marba waxay dhahaan wax ma ka jiro oo wixii bulshada u bataan wax ma ka jiro haddaba urkii la isku xaxanto oo la dhaho Shiine Culey Manaal ayuu ur yeelay Shiine Culey iyo Manaal mar walba isla socdaan maanta Shiine Culey ayaa bartiisa wuxuu ku soo qoray inay ugu dambeyntii u dhalatay gabar dalkan Australia ugu dhalatay inuu ku faraxsan yahay maanta inuu noqday aabbo buuxo wuxuuna leeyahay waxaan Ilaahay uga mahad celinayaa asaga ayaa mahad iskale oo maanta awood u yeeshay inuu nasiiyo maanta ciyaal oo markaasi dalkan Australia oo nagu dhashay haddaba markaasi Manaal waxay dhashay ayaa markaasi wuxuu yahay gabar balse markii ka horeysay dadka ayaa islahaayeen Manaal Beeldaaji uur ayaa leedahay uurkani iyo waxa iskale CK oo Shiine Culey iska malaha balse maanta waxaa si xaqiiq dhab ah oo qirtay uurka inuu leeyahay markaasi uu leeyahay Shiine Culey balse hore waxaa ognahay markii hore ay kala tageen xaaskii hore Manaal iyo sidoo kale CK ay kala tageen isla markii horta waxaa jira diintan ay sheegaysaa markaasi wax la dhaha ciddo mar haddii naagta la furo inaysa gurigeeda ay ka bixinin ilaa muddo kooban balse Manaal ayada markii uu furay CK isla markii way soo baxday Shiine Culey ayay u tagtay halka Shiine Culey markaasi uu baraha bulshada ku faafiyay inuu abti u yahay Manaal uu qabanay abti uu magac markaasi oo la baxay Abdi Xabiibi haddaba Abdi Xabiibi markii la fasiro ay waxay noqonaysaa yani mar abti inuu u yahay haddana ha ahaatee inuu jacayl kala dhexeeyo oo xabiibidana meesha ayay ka imaanaysaa sidaas ayaa loo fasiranayaa balse waxay marar badan ay kala laxdaan baraha bulshada ay dhahan aniga iyo Manaal waxaan nahay abti ayaan u ahay u dhaho oo marar badan lagu soo eeday la dhahay Manaal markaasi adiga ayay uur ku leedahay Shiine Culey ayaa taasi markaasi dadka ka beenay oo wuxuu dhahay aniga abti ayaan u ahay Manaal mana sidayna ku dhici kartaa waxaasna dameerka ima siinaya ayuu ku dhahay sideen Manaal uur ugu yeelaya haddaba dadka ayuu ku dhahay waxaan awoodin naga joojiye oo waxaan mar walba meesha la soo fadhiisanaysiin oo waxaa rabtiin dadka aad ka hadlaysiin ayuu dhahay balse sidoo kale ayadana Manaal ayaa markaasi lagu eedeeyay inay sidoo kale u leedahay uurka Shiine Culey haddaba markii taas ay meel uga dhaqaaqday ay waasay ayaa soo fadhiisatay barteeda ayaa waxaa ku dhahday aniga Shiine Culey waa abtigay oo markaasi abtigay macaan sideen uur ugu yeelahay anigana uur mali ayay dhahday waxaad sheegaysaan barabagandada meelaha ku wadana wada haddaba marba Soomaali ayaa hore waxa u dhahday wixii la sheegay wax uma ka jira marba ay ka harka imaan doonaa haddaba waxay ka meereystaan ummadda been u sheegaan maanta la taagan yahay Shiine Culey ayaa bartiisa ku soo qoray oo wuxuu ku dhahay waxa ugu dambeyntii isbitaalka Australia ay ugu dhashay gabadhana cid kale kama dhalin Abdi Xabiibi ayaa ka dhalay ayuu leeyahay dadka ayaa arinta markay maqleen la yaabeen wala fanjaxin waxay yaabaneen war maxaa way arinta sidan isleeyin haddaba dadka hore waxay u aaminsanayeen uurka ay leedahay markaasi Shiine Culey inuu ahaa King CK uu leeyahay oo markaasi uu leeyahay sidoo kale dad qaar ayaa markaasi aaminsaneen oo waayo waxay aamin waayeen marba
qofka gabdhaha markii la furo waa inay muddo kooban guriga ku jiraan. Hase ahaatee Manaal taasi may sameynin. Isla markii maalinta uu furay CK waxay samaysay Shiino Cole ayay markaas u tagtay ayadoo markaasi iska buusayso oo CK iska buus leh. Haddaba markaasi Shiino Cole oo asagana ka faa'iideysanayay oo markaasi dhahayay oo CK iska boos aniga ayaa ku jooga, aniga ayaa abtiga, aniga ayaa wax walba. Haddaba taas ayuu ka faa'iideystay oo markaasi ayada ayuu markaasi isku laabay oo markaasi jalam iyo another level dhex martay. Haddaba si kastaba ha ahaatee wixii soo kordho iyo sidoo kale arrintan King CK asagoo wuxuu ka dhihi doona inta ayaa nala socodsiin doona maadaama video xiga aan nala socodina maadaama CK dadka ay sugayaan inuu ka hadlo arrintan waayo marba waxay ahaan jirtay CK lagu dhaleeceyn jiray oo urkan asiga inuu u leeyahay maadaama ay kala tageen balse taas iyo in kale CK iyo arrinta wuxuu ka dhaha sidoo kale waxaan iskula falaqayn doonaa video soo socdo dabada marka muuqaalkan inta ayaan kusoo koobina waxaalaha soo socdana muuqaalka dambe video ayaa ku arki doonteen. Haddaba daawada markii hore aad YouTube-kana soo booqato subscribe saar video like saar sina share si aad u hesho muuqaalada qurux badan aan barta mar walba soo gudbino inta ku kulmi doona muuqaalka waan idin sidaas nabadgelyo. weligii baadka adigoo ka xanaaq ma fahanti ama falcelin qaldan ka baxsho ma fahanti taa waa ku saxan tahay been kama aadan sheegin sideeda barnaamijka social media waxaa jirta maaragtay aan gaari sidaa kugu soo shubto iri anoo ursita kusoo soo ayuu ku soo maya waa gabdha waa gabdha maya waa ogahay aniga cabdidaanto daahir cali sow Shiino Culey Cabduqaadir Boos allooyaan ka tegay afartaas nin ee hadda aan sheegay haddii wax la iga weydiiyo inaan aniga iska hadlayo camal uga sheekeeyaa macnaha ismaba liiba dhibaa kaaga imaahayo macnaha ma fahanta adiga waa la iska baashaalaa moogta iyo qof waxaa jira markii xataa positive aan ka sheegayo aan is ilaaliyo irinta la soo karkacay marka xarfaanteeda tahay ninkaadi qof arinta furaas iyo hadla ilaa taas ragoo dhan baa wada taga maasha allah waa la wada taga aniga waariga aad soo maantii tagay waa sugnaayay taaj laftirkeeda taaj u tagay marka waxay buunbuunintii iyo dadkii isoo dhigayay iyo lifekii dadka badan idaawina waxay igala qiimo badnaatay dadkii mansabka lahaa in la idaminayo oo xamaasadan iyo hadalhayntan la iga qaboojinaya oo arkay dowladdii dhanid baa arkay aniga macnaha inay maaragtay that means marka dadku inay ka waalayaan dadka inta badan ayaan waxaad ku sheegay wax sax marka jooxa boy aad u baas odagu way ka tabaatigayaa mid aad u badan yahay aniga dadka mar walba waa iska cafiyaa qof aan calool wax ku qaado malaha niyahow adna waa dulqaad badan tahay horta aniga laftirkayga waan ku foodayaa niyahow inay cafisaan rabaa inagoo saaxiiba ah inta badan kugu dhegana laakiin kuma caayo laakiin waxyaabahan aniga aad isdhaxnaa iska soo qorqoraa waxaan jeclahay qofka aan saaxiibaan adii ayuub kaarloo kale markaan hadda arko sawirkiisa anoo meelaha dhex socontaa soo qaataan ku dhahaa ninkaan madaxiisu bararsan yahay waxbaan iska soo qoraa marka taa been kuma sheegin taa waa runay taa been baa waa sax Shiino horta maalin laxdaasaan Shiino Culey isku maqalna cabdidaanto garad adiga asbuuc kala soo wareegan wuxuu iiga warramay markii uu tegay cimrada wuxuu yidhi niyo ayuubow adduunyadan waa laga tegayaa waa laba beri qaladaad baa kaa dhacay dadkoo dhan qaladaad baa ka dhacay marka cimradana wax badan maahan inuu iska soo cimrayso ma fahanti waa soo qaboobaysaa niyaddaa kuu dhismaysaa ma fahanti intuu hadalka ii wada wuxuu ii raacay wuxuu yidhi cimrada intaan joogo ayuubow kuu soo duceeyey qof walba oo soo laba qaacintiin oo ii heshiiseen hal mid ku dareemaa wanaagayga fiir tusbax baan wata waan wardinayaa war ninkan waa nin ilaahay yaqaano ilaahay ka cabsanayo beydkii ilaahay ku jira ma dhahaysa midowgayga alla hadda ku program tusbaxa la arko tusbax si fiican ba looguma jeedo midabkaaga birbirqa ah qarxaya adiga birbirqa maasha allah araweelo soo dhawow kelmadaada
السلام عليكم وين السلام ii follow gareeya waxaan ayuu ka hadlayshin culay walaalka kale cabdi si fiican baa lagu dacaydayay laakiin way ka muuqataa nuurka diinta weeyaan walaalka shinicna waxaan dhahayaa marka koowaad beebiga ku dhashay markii xigtana facebook hadda la sheegayo waanu flow waan sameeyaa waan ku taageeraa ku faraxsanahay intaan ku dhahayaa walaalo maasha allah kawsarito gabadhaan flow garan oo aad iyo aad umaasan tahay ii follow gareeya ii follow amiisha soo qabso amiisha idris bebe saa weerar uma ahaan jirin maxaa dhahaa gabadha haysta arrima عدي دان تقرر وانا سكين قال يعني يكرر gabadha macnaha mamalyan baa ugu jiro oo ciyaarta kuusoo socotaa ka fudud miyaa inay ku shiiso وقال ما كوسر قبل يقرنها ha لي والله عاوي يقول هذا بقوم بمليه maya waxaan dhahday gabadhaa kusoo celcelisay marka waxaan dhahnay kawsar gabadha de macnaha magaceeda macnaha saasaan u dhahnay إمنا مع عيار ولالكي مقعي ولا كوسر وحدنا وانا كحمس تحويل بس طبعا تواني دفرته مركا ولي يعني الله ما هضلو انا سو هضلا ما شاء الله ولي ايو كروان قانا بين عنوا قانا قبل الدجال بيكون جرتاي هي كوسر يوم كسلامة بالكوسر ubay bay dagaal ma jira lajin dagaal ma jira gabadha noo daa doodina in geli mar rabo كوسر يا adigana haye inaad hel balwan ku salaamay iyo xaqna daawaniga dhamaantiin thank you shiin oo ku ambalyeynaya oo ku daawanayay weligii live intaan daawanay live ugu dheeraan daawada kaaga u noqday waxaan u maleeyaa 2 saac ku dhawaad oo daawanayay waxyaabo badan oo cajiib baad ka hadashay sabarka badan baad ka hadashay dad fara badan oo hadda doonaya caan inay noqdaan baad kala talisay dad badan oo adigu caawisay oo waxyaabihii aad kula talisay markay ku soo biirayeen baraha bulshada adigii kugu sameeyay oo ugu dul qaadatay oo tiri ruuxii maanta laga hadlayo laga hadlo waxyaabo badan oo iga qoslisay baad ku hadashay inaad xaj ka tagtay oo ii soo duceeyday inkastoo aan adigu waliba nin caana oo asxaab badan leh rag iyo dumar isugu jiro aniga soo xasuusatay kan caanaha ila nuugay naaska ila nuugay ima xasuusan lahayn marka allah ku sharfishiino awlaadaada baar allah kaaga dhigo xaaskaaga baar allah kaaga dhigo adduuni aakhirana inaad wax ku dhaw ilaahay kuma tuso eeg waxaa idii sheegaa idris bebe tiktoka markaa ku bartay wuxuu soo samayn jiray heeso oo qaraamiya wuu soo samayn jiray ilaahay waa meel wax qadareye frankfort magaalo la yiraahdo waa imaaday anoo baanqofkeeda maraya baa ninkii iga soo horbaxay idris markaas ba nin baa idinka xanuunsada sooma nin baa idinka xanuunsaday maya markaas laba qof aan ahay marka aduu ninkii waa isaga idriso ay u shidan tahay laba gabdhood ba xagga odaygu dhexdii ugu jira xaggaa laga marayaa moogta boqor sakariya og waa mahadsan tahay ya ninkii marka waa isi salaanay waa ninkii idris ahaa marka ilaahay amarkii ishaaro baa furmatay isna xaggu ka soo socday ana xaggaa ka soo socday waa first time aan isaragno dhexdaan isugu nimid meeshii baa marka isku salaanay marka waxaan u wada noqonnay dhinacaan ka imid baa u wada noqonnay meeshaan wada istaagnay war idris iyo war abo wallahi fiican ninkii anaga safar baan nahay marka meel fog baan u socday ilaa waa joog